10 sano ka hor. Sanadku waa 4 xilli, 12 bilood, 48 usbuuc, 356 maalmood. Haddaan si kale u dhigno 10kii sano ee lasoo dhaafay, waxa inaga tegay 3560 maalmood oo ka mid ah cimrigeena. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kale iyo muuqaal kaloo cusub kaasoon kaga hadli doono qiimaha waqtiga. Magacaygu waa Axmed Yaasiin, halkaad naga daawanaysaana waa Higsiga Hadaf. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Wuxuu ka mid yahay hibooyinka Ilaahay nagu manaystay ee tiro beelay waqtigu. Wuxuu ka mid yahay nimcooyinka ay bulshadeena dayacday. Wuxuu ka mid yahay waqtigu waxyaabaha la isweydiin doono maalinka qiyaame. Waqtigu waa nolosha, iyadoo laga cabirayo qiimihiisa ayna jirin wax goynaya. Waxaa la yidhi waqtigu waa lacag, iyadoo laga cabirayo qiimaha uu leeyahay. Waxaa la yidhi waqtigu waa sida seefta oo kale, oo haddaanad goyn isaga ayaa ku goynaya, iyadoo laga cabirayo socodka iyo orodka aan joogsiga lahayn ee uu ku jiro. Allah subxaanahu watacaala marar badan ayuu ku dhaartay, taasina waxay ku bildhaaminaysaa qiimaha uu waqtigu leeyahay. Gabyaagii Carbeed ee gebiyey wuxuu yidhi, garaaca wadnuhu wuxuu fariin u dirayaa qofka laftiisa, isagoo leh noloshu waa daqiiqad iyo ilbiriqsiyo. Nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, laba nimco oo ay dadka badankiisu moogan yihiin, waana caafimaadka iyo firaaqada. Diinteennu aad ayay ugu nuuxnuuxsatay dhowrista qiimaha waqtiga, laakiin nasiib darro badanaa inta jeereed waddo marto eed aragto dhalinyaro fadhida gidaarada iyo kahabadaha badanaa. Sanadku waa 4 xilli, 12 bilood, 48 usbuuc, 356 maalmood. Haddaan si kale u dhigno 10kii sano ee lasoo dhaafay, waxa inaga tegay 3560 maalmood oo ka mid ah cimrigeena. Ma isweydiinay maxaa inoo soo kordhay, maxaase inoo qabsoomay, maxaase aan faa'iidnay, maxaase naga khasaaray? Isbarbar dhigno muuqaalkeenii shalay iyo keena maanta, wax micnaa soo kordhin mayso haddaan kuwa ku kordhaa gabo mooye ku tarin garaad iyo waayo aragnimo. Ma ogtahay daawade in 15 daqiiqo oo isbiirsatay ay soo baxayso sanadkii 11 maalmood, 22 cisho ku dhow bilna ay tahay 30 daqiiqo oo maalinkii ah? Waqtigaan ka hadlaynaa waa ilbiriqsiyo isbiirsaday oo noqday daqiiqado, iyo daqiiqado isbiirsaday oo noqday saacado, iyo saacado isbiirsaday oo noqday maalmo, iyo maalmo isbiirsaday oo noqday sannado. Adiga oon is ogeyn ayaad ku khasaarinaysaa filim daawashadii 8 sano oo jaamacad dhakhtar ku dhammaysan lahayd. Markaasaad hadhow qoomamaynaysaa ood odhanaysaa, haddaan sidan samayn lahaa, sidan ayaa noqon lahaa. 10 sano kadib, haddii aanad gaadhin halkii la rabay inaad gaadho, weli fursad ayaad haysataa daawade. Dibna u bilow hanashada maamulidda waqtigaaga. Qorsheena in 10 sano kadib aad noqoto xidig iyo tusaale ay ku daydaan kumanaan dhalinyaro ahi. Maskaxdana ku hay xikmadda odhanaysa, maalintaadu yaanay kugu dhaafin faa'iido la'aan, maalkaagana ha dhigin waxqabad la'aan. Waayo cimrigu wuu ka gaaban yahay inuu dhammaado faa'iido la'aan, maalkuna wuu ka yaryahay in la dhigo waxqabad la'aan. Daawade, waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka. Muuqaalka leeg saar, sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh oo nagu soo biir.